نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا mar kale waxaan joognaa afaafka hore ee magaalada Boosaaso waxa halkan u soo baxay boqolaal dadweyne ah oo ka tirsan shacabka magaalada Boosaaso waxa soo dhaweynaya Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun waxa jooga dhinacayga bahda jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso Allah aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanahay faraxan waxaan la qaybsanaynaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada waxa la soo dhaweynaya caalim culimada Soomaaliyeed kamid ah Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ka soo qaybgalayaasha soo dhaweynta aan magaalada Boosaaso ku soo dhaweynayno Sheekh Mustafa idil ahaantiin ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh salaan kadib waxa farxad weyn noo ah hadii aan shacabka reer Boosaasood inaanu maanta halkaan si diiran ugu soo dhaweyno Sheekh Mustafa waxa leenahay sheekhana ku soo dhawow magaalada Boosaaso ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow magaaladii ummadda Soomaaliyeed oo dhan midaysay oo jamcisay wax badan oo hadal halkaan kama furna noo soo dhawow magaaladaadi waa baladkaagi insha Allah taala waxaan rajaynaynaa labada maalmood iyo saddexda maalmood aan la joogtana inaad naga aragto soo dhaweyn inta ka ballaaran insha Allah taala anaguna aanu ka faa'iideysano cilmiga diiniga iyo kan maadiga labadaba insha Allah taala intaas aan leeyahay soo dhawow sheekh farxad weyn noo tahay maanta inaan gobolka Bari caasimadda ganacsiga Boosaaso aan ku soo dhaweyno Sheekh Mustafa Ismaaciil Haruun oo runtii sheekh weyn oo Soomaalidu aad u wada taqaan oo dhanka dacwadda iyo maaragtay inuu dadka ku baraarujiyo diinteena caan ku ah gaar ahaan wadamada Yurub Sheekh Mustafa ku soo dhaweynaynaa hadda Yurub waxa weey nalka ka shiday waxaan rajaynaynaa inaad gudaha dalka nalka ka shidi doonto hadduu Allah idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maamul iyo shacabba aad baan idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta tirada badan leh waa waddan Soomaaliyeed aan imi wixii kale isu sheega waxaan u maleynayaa in magaalada ku kala qaadan doono laakiin waxaan baan idin leeyahay mahadsantiin assalaamu calaykum sheekh maxamed laba galbeed بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرحة وين يقول وين بوتهاي بولشدا تريبتلان قارهان بوصاصو إنه ما أنت إنه يميد شيخ مصطفى أو هذا عجلته سيعود كيسة هذا هراي واحد بدر قشين هذانا إن شاء الله مقال كيسة يا محاضرات كيسة كل دير صندوقتان مركز شيخ سعود وبان لنا هاي إذا كان دقيسي وعن أدل ما سنتين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد